Waa maxay low iron? Maxaa lagu gartaa calaamadaha low iron-ka? Maxaa sababa low iron-ka? Anemia inaad noqoto ma keeni kartaa? HB-gaagu xoogaa iska normal ah, iron-kaagu low ma noqon kartaa? Calaamadaha low iron-ka lagu garto ma ka mid tahay suuxdin iyo inuu qofku suuxo? Sidaa loola tacaalaa? Sidaa loo diagnose gareeyaa ama loo ogaadaa inay jirto iyo in kale? Maxaa lagu sameeyaa oo lagu ogaadaa diagnostic u ah? Si dabiiciya cuntada laga helaa? Sidaa loola tacaalaa loo nafaqeeyo si dabiiciya cuntooyinka ironku ay ku badantaho laga helaa? Su-aalahaasoo dhan maanta waxaan uga jawaabi doonaa videoweygan gaaban oo idinku soo socda. Halkaad videogan ka daawanaysiina waa Dr. Xaashi Network YouTube channel. Isu soo noqosho wanaagsan. Low iron sideeda waa maado ka mid ah maadooyinka jirka bini'aadamka ku jira oo crucial ka ah oo aad ka muhiim u ah, waxaana aad inay muhiim u noqoto waxyaalaha ugu waaweyn oo ay muhiim u tahay waxaa ka mid ah iron waa oxygen carrier ama borotiinka loo yaqaano hemoglobin ayaa laga sameeyaa ironta oo ka samaysan. Hemoglobinna waa oxygen carrier. Jirka bini'aadamka oxygentan aan neefsayno oo lungska markuu dhex maro exchangeyo kale uu sii sameeyo. Waxaa viral kasta oo jirka ka mid ah oo maskaxdu ay ugu muhiimsan tahay waxa gaarsiiyo oo macnaha oxygenku inay dhiigga raacdo umbaan maqalnaa, laakiin maadada sida oo oxygen carrier ah oo dhiiggaas dhex marsiido jirka intiisa kala gaarsiida waa iron, waa hemoglobin. Marka maxaa dhacayda markii low iron markay noqoto borotiinkaas wax uu yaraanaya oo HB-gaas uu dhacaya. Markuu dhaco waxaa dhacayda waxyaalihii oxygentu meelihii ay loogu talagalay inay gaarto enough oxygen gaari weyhida, oxygen ku filan gaari weyhida. Meelaha ugu khatarta badan marka oxygen ku filan ay gaari weydana waxaa ka mid ah maskaxda. Marka waxyaalaha sababa maxaa ka mid ah inay sideedaba ironku